قصة عجيبة nin waxaa la oran jiray magaciisa qays naag buu aad u jeclaa layla la oran jiray layla gabadha laakiin boqor baa dhalay isagu laakiin waa miskiin boqorkii baa inantiisii ku yidhi aabbo waad qaan gaadhay haddee toole soo kuma dhiso markaa bay tiri aabbo ninkaan ii dhisaysid anaa kuu sheegay bas waa ninkii qays baan jeclahay tiri qayskii askartii ciidankii qays ma taqaan markaa mid miskiin oo magaalada dawarsada aabba ma adoo ina boqora qays jeclaan buu ku yidhi magaceedni baa biisay waxay tiri ninkaan inaan ahayn anigu guurkiisa uma fadhiya ninkaa mooyaane maxabada beenbeenta iyo maxabada runtan qisada usoo qaatay dhegaysta waa qiso macquulana marka la eego runtii oo caqligal ah oo wax lagu fahamsiinaya innaka gabadhii way weynaatay ninkiina uu iska waashay gabadhii waa loo diiday moogtahay xayraan buu noqday isaguna timaraan uu la baxayo qasriga boqorku ku wareegaa isagoo markaa magaceega ku celcelinaya xataa maalin baa la arkay isagoo gidaarkii dhudhunkanaya darbigii markaasaa dadkii ku yidhaha warqaysow darbiga maxaa la dhunkano wuxuu hi darbiganaan gidaarkanaan dhunkanaayo siijeedkiisa layla ku ciyaare soo fadhida buyi cajiib soo ma haddana maalin kalaa la arkay ay isagoo dhudhunkanaya war ayganaad dhunkanaysana muxuu yahay waaladiiba ay bay kula gashay wuxuu hi aqalka layla ay ku jirtu ka soo baxay buyi dhegaysta intuu soo socotaa ka cajo badan gabadhii boqorkii si walba markuu dhinac walba kaga keenay wiilashii ay dhaleen madaxdu iska diiday ayaa boqorkii waxaa lagula teliyey marba hadday gabadhani waa ta weynaatee ninkana waalidiisu waali sii dheerba ma ahayn hala dabiibo oo timahana ha laga xiro aqalka ha la soo geliyo waa nin iska qurux badan ee ha la dhiso gabadhana ha loo dhiso dhallinyaradii magaalada markaa waxay ogaadeen inuu boqorku rabo inuu qays hadeetoola gabadha iskaga dhiso boqorkii markaa ciidan buu diro wuxuu yidhi haddaba ninkii qays ahaa soo qaado aqalka soo geliya geed uu markaa hoos deganaa waxaa loogu yimiday 20 nin oo qays u wada eg dharkiisii bay wada xidheen waa dhallinyaradii sida dhallinyaradeenu iminka kuwa gaalada isku ekeysiyaan madarkin waa kubadaha ciyaaro iyo kubaddu maxay tahay waa lastiig hawo lagu shubay soo maha kuwa waxaa dheeldheele ee noloshoodiiba waxaa ku dhammaystay ayay dhallinyaradeenu qaarkood ay horumar moodaan isku ekeysiyaan gaal waliba gaalnimadiisu waxa usii dheer waa shahawaani lastiigaa yaree hawada laga buuxiyey ayuu wax isku moodaya isku qiimaynaya markaasay dhallinyaradeenina ku daba lumeen waxaad ogaataa dhegayso almar'u maca man axabba yowma alqiyaama buu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid nebiga oo yidhi nebi allow nin baa dad jecel laakiin darajadoodii camalkooga ma samayn karo ee nebi allow maxaad odhan lahayd markaa buu nebigu yihi cidda uu qofku jeclaaduu qiyaamaha la joogsanaya buuri meel haddaad kuwa heesa aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi haddaad kuwa kubadda ciyaara aad jeclaato qiyaamaha yakaad la soo bixi haddaad siyaasi jeclaato qiyaamaha siyaasigaad la soo bixi haddaad qabiili jeclaato qiyaamaha qabiili baad la soo bixi haddaad culammada rabbaaniyiinta jeclaatana yaka qiyaamaad la soo bixi haddaad abibakar iyo cumar jeclaato abibakar iyo cumar baad qiyaamaha la soo bixi haddaad nabi maxamed jeclaatana muxamed calayhi salaatu wasalaam baad la soo bixi insha allah dhahada marka dhallinyaradii maadaama ay maqleen boqorku wuxuu damacsan yahay inuu ninkii qays ee waallaa uu gabadhiisa iska siiyo isagoo kale markaa iska soo dhigeen halkii la filayay isaga in loogu tagaayo 20 nuuciisiyaa loogu yimiday markaasuu mid walba leeyahay orde qays waa aniga markaasaa la dawaqay waa isku dhar waa isku timo waa isku hadal waa isku gadh si midaad boqorkii baa loo noqdo la yidhi boqorow meeshii nin keliya ma fadhiye 20 baan helay 20 nin oo wada qays ku yahayna anagu garan mayno boqorkii baa inantii u yimid aabbo ninkii 20 buu noqday waxay tiri anaa garan qayskii dhabta ahaa anigaa garanaye nin walba soo qaado qol ku xereeya qol baa lagu xeraynayaa qol dhagaysta waad maqlaysaan insha allah markaasaa nin walba qolka lagu xereeya waxaa loo geynayaa nin xoog le oo seef wata ayaa loo geynayaa markaasaa su-aal baa la weydiin oo laleeyahay ma qays baa tahay markaasuu leeyahay ha qays baan ahay anaa qaysa waxa kale waa beenalayaal markaasuu leeyahay haddaad qays tahay oo layla aad jeceshahay waxay kaa tiri jirkaaga bar ii soo goo walaa musa waad qasasheen kii horreeyaa loo yimid ma qays baa tahay ha qays baan ahay le laba nin oo xoog la loo keeno seef wadata moogtahay oo askara waana aqalkii boqorka waa la soo xereeya lama baxsan karo ma qays baa tahay ha gabadhii waxay ku tiri haddaad qayskii dhabta aad tahay
jirkaaga bari soo goobay ku tiriye halkeenu goynaa noo dhib ha goynay markaasuu yidhi waraqaysna ma yihiin haddarid sii daayo albaabkaabu ka baxay wasalli ya xabiibi midba mar sidii loogu imanayo mid walba uu lahaa warqaysna ma yihiin haddarid sii daaya ilaahay da taqaanaan oo halkaa uga baxayay ayaa isagii dhabta ahaa baa la dul yimid oo la dul taagay ma qays baa tahay markaasuu yidhi insha allah anigaa qays kuwa kalena wallahi wax yihiin garan maayo meesha unbay igu yimaadeen oo gabadha waad jeceshahay ha waan jecelahay iyadna way jeceshahay de waxay kaa tiri jirkaaga bar ii soo goo halkeen goynaa noo sheeg wuxuu yidhi ayada ku noqdo ku dhahada halkee baad jecesha oo kuu soo gooyaa ka dhahada buu yidhi markaa bay tiri qayska dhabta waa kaa ii soo saara bay tiri maxabada kuwa hore maxay ahayd baan maxabada ninkana nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa nabigeennii waa rasuulkeennii waan jecel lahay laakiin dhallinyaradeennu maanta ma john iyo boom bay u eg yihiin mise moxamed bay u eg yihiin bal ii sheega ya ma john iyo bon iyo tyson iyo shaydaan bay u eg yihiin mise moxamed iyo cumar iyo abubakar bay u eg yihiin تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع جعلك شيغان سؤال لا دحي إلهي وان جعلهي وان آمن سنهي ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام وان جعلهي وان آمن سنهي وحي جعيلته أي سحن قنيسا وأمرك النبي محمد أطلعت يهود بان لقد إذا محبة كلية محبة قولية يهود با إلهي كديدي وحير هذين إلهي أنكم وان جعل لهي برقاسا إلهي سودجي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا محمد وحد قتل هذا نمكا يهودين حداتيك وإلهي جعل وحد قتل هذا هرتاني كي سورة عكده إلهي جعل الذي سوحد دليل برهان كأ اتباع محيقا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيا معشر الشباب لن يرادوا بدته المجلس كان فريست إن شاء الله ودقاقة جوجية يسوع سعدنا فريسية إنكم رجنا واوين خير باي نقاب مقدر دين جعيل المسكيت كوصو عمرتين لكن جعيل قواحا قدرنا عمل فلكي ما قدرنا إن شاء الله هذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سيرة دي سام برانينا سورة دي سيبان يلانينا سورة دي سوا معي قابك نبينا ودق مينا سيرة ودقن كيسي قابك ودق مايي قابك ودق مايي جار كيسان جارك ودق مينا قابك ريريس ودق مايي ريرين ودق مينا قابك دليرد ودق مينا دليردين ودق مينا قابك مساكين ودق مينا مساكين ودق مينا قابك النبي مجتمع ودق مايي أيان مجتمع ودق مينا نبينا عليه الصلاة والسلام ما عرون جرين ما عيتم جرين ما الحن ما فريسان جرين هذا الحن كما هل جرين هذه وضد ودلي ما دنا صدح جاب النبي صلى الله عليه كاس هذا النبي عيدوت كما دو وحق هذا بقى كجت ما دي الله الله قرت النبي ما قالوا عينين ولكن النبي سجى قف وده جسر يقابل عليه هذا النبي قف سلام ينا قعدت مديك بكو سلام جري هذا قف وحسين ينا قعدت مديك بكو سين جري هذا عيد وحق قادنا ينا مديك كجا قادنا يي هذا عنتعنا ينا مديك كعنا يي هذا بيع عباينا midigtu ku cabaayay hadduu maskiidka soo galaayo midigtu ku soo galaayay hadduu aqalkiisa uu galaayana duca la akhrisu nabigu lahaa hadduu dhar xidhanayana xaguu ka bilaabaya midigta dhar qaadashada dhar xidhashada midigtuu ku bilaabi jiray dharka markuu siibayana bidixduu nabigu siibi jiray kabaha markuu xidhanaya midigtuu yuu gelin jiray markuu siibayana bidixduu horraysiin jiray rasuulku hadduu timaha iska xirayana xaguu ka bilaabayo midigta ina yaroo timaha inna laga xiiray inna loo daayay buu nabigu arkay sal alla alay wasalam markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam kii yaraa buu yidhi aabihii mee iigu yeedha waa loo yeedhay ama timaha ka wada xiir ama timaha u wada daa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ama timaha ka wada xiir ama timaha maalmahan waxaan arkaa kuwa timo waaweyn timihii berigii hore afroogi ayaan dhallinyarada ka arkay kuwaasaa la qaatay imika marba timaha haddaad daynaysaan iska daayaa xiirinaya ama wada xiira buu nabigu leeyahay ama wada daaya waa dhaqankiisi waa dhaqankii islaamka inaad nabi maxamed ku dayataa waa diin inaad gaala ku dayataana waa diin la'aan